السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودوادا ميل والبو عالمka ka joogtaan waxaan idin kugu soo dhaweynaynaa website-keena warshadaha.com. warshadaha.com waxa laga yaabaa magaca markaa maqasho inaad istiraahdo maxaa laga wadaa warshadaha.com, muxuu qabtaa, maxaa loo wada jeedaa, maxaan ka faa'iidayaa. bal marka hore isdeji su'aalahaas oo dhan waa su'aalo muhiim ah oo waajib ah in aad hesho jawaabtooda saxda ah. warshadaha.com waa website cusub oo amar u daha ka furnay. waxyaalaha ka faa'iideyso oo dhan ku sheegaya hadii la yiraahdo. horta aan ku bilaabo marka hore yaa ka faa'iideysan karo. waqtiga maanta lagu jiro 21st century iyo technology-ga caalamka si isu bedeshay iyo ganacsiga e-commerce-ga xawliga oo ku socdo trillions of dollars oo marayo. waxa lama horaana caalamka meel walbo inuu gaaro e-commerce business kala yiraahdo ganacsiga e-commerce-ga. saadarteed hadii aad fiiriso 1990-meeyadii bilowga ilaa dhamaadka aad fiiriso warshad ku taala dalka Mareykanka ama dalka China ama dalka Turkey marka la xiriirto jawaabta ugu hor ka helayso waxa weeye 10,000 oo shay 20,000 oo shay 30,000 oo shay ma iibsanaysaa ayay ahayd jawaabta. laakiin maanta warshadihii wax weyn ba iska bedelay. waxa arkaysaa warshado 100 shay 200 shay 500 shay ka iibinayaan. maxay ku dhacday? u fiirso maxay isbedelay? waxa isbedelay marka hore hal shirkad oo weyn baa wax iibsan jirtay oo alaab loo sameeyay jiray. haddana waxa soo baxay shirkado badan oo yaryar, dad badan oo individual ah oo yaryar soo baxay oo ganacsi yar intay bilaabaan hadhow ganacsiga weyneenayaan. marka kuwaas ayaa badan. marka warshadii waxay ku qasbanaadeen qofkii intay dhigayeen 10,000 oo shay hal mar naga iibso inay 10,000 oo qof min 100 shay ka iibiyaan. saasa hadda aad uga qurux badnaatay lacag badan ay ka sameeyaan. hadda warshadaha.com xagu ka soo galaya aniga Idrisa meelo badan oo caalamka ayaan ku safray. haddii noqoto dalka Mareykanka, Canada, dalka China, dalka Turkiga, warshado badan oo caalamku yaallo waa arkay isay u shaqeeyaan systemkooda. barnaamijkan warshadaha.com markaan bilaabaynay hadafkeenu wuxuu ahaa waqtiga maanta lagu jiro community badan ayaa waxay jareen oo daaha ay talaabadii ka qaadeen in ay maraan wadadii ahayd qofka hadduu dukaan leeyahay ama wholesaler uu yahay bakhaarle uu yahay in uu sii maro 3 iyo 4 gacan oo loo yaqaano middleman ama brokers loo yaqaan inuu sii maro. warshadaha.com waxa ka faa'iideysan karo hadda dukaan la tahay, hadda qof entrepreneur tahay oo hadda wax bilaabayo, hadda Amazon wax ku iibiso, hadda eBay wax ku iibiso, hadda online Shopify wax ku iibiso, hadda iyo online store aad leedahay, hadii aad dukaan uu kugu yaalo caalamka meesha doon ha ahaado, hadii aad bakhaar leedahay, wholesaler hadda tahay, intaas oo dhan way ka faa'iideysan karaan. sababtana waxa weeye qof walba oo alaab iibinayo wuxuu u baahan yahay inuu alaabta ka soo iibsado qof kale. qofka kale marka waxa kala dooran kartaa inaad ka iibsato qofka kale ka soo iibsaday warshadii iyo inaad adiga toos warshad uga iibsato. labadaas kala dooran kartaa. warshadaha.com marka wholesalerki, brokerski, distributorki, traderski iyo middlemanki oo dhan oo dhaxda u wada taalay mid walbo albaab u yaali ayaa ka leexanaysa. toos waxa uu la xiriiraysaa warshada rabtana wax ka iibiso. tusaalan ku siinaya maanta waxaad degan tahay dalka Mareykanka ama Soomaaliya ama Kenya, meel baad degan tahay, meelaha hadda aan u badannahay. waxaad rabtaa inaad bilowdo cosmetic business, looshinaa rabtaa inaad bilowdo, magacaada inaad ku soo samaysataa rabtaa. waxaad tahay gabar Soomaaliyeed entrepreneur, maybe wiil Soomaaliyeed entrepreneur tahay, online rabtaa inaad ku iibiso ama dukaanka caadiga rabtaa inaad ku iibiso. waxa ugu horeeyo aad isweydiinayso waxa weeye xagee alaabtan ka keenaa. dadka waxay ku dhahayaan orod alibaba.com tag, website-kan kala tag, website-ka kala tag. wal warshadaha.com wixii oo dhan bay ku hal meel soo ka keentay marka hal meel. maanta alibaba.com marka tagto alibaba wuxuu soo xiraa dadka caadiga iyo warshadaha isku xiraa. laakiin warshadaha ku jira alibaba.com alaabtoodu waa qaali. sababta maxaa keenayo? waxaa keenayo adiga hadda Google garay warshad walba oo ka tirsan Alibaba platformkooda $4,000
ay sanadka bixiyaan ay siiyaan alibaba.com taas marka waxa keenaysa inay price kaas iyo lacagtaas ay ku daraan alaabtooda akeenayso marka dhowr mar markaan tagay kantan feerka feerada waaweyn loo qabto manufacturerada dhowr mar markaan arkay mataqaanaa systemka manufacturerada u shaqeeyo waxa ii soo baxday in warshadihii iyo dadkii toos ay iskula shaqeyn karaan iyagoo aan u dhaxaynin wax middleman ah haddaba warshadaha.com ganacsi walba ku jirto markaa member ka noqoto waxaa helaysaa 800 oo kun oo warshadood information-kooda ayaa ugu dhex tegaysaa ama 6 bilood subscribe garay ama sanad subscribe garay macnaha subscribe waxaan ka wadaa ama 6 bilood ka mid noqo oo rukumo ama hal sano midka noqotaba ama ka badan si kasta ahaataba markaa isdiiwaan geliso waxaad helaysaa fursad ah inaad kaga mid noqoto inaad hesho information-ka warshadahan information-ka ka hadla marka muxuu yahay warshada magaceeda helaysaa meeshii ku taala helaysaa waxay helaysaa mataqaanaa telefoonkeedii waxay helaysaa fax numberkeedii waxay helaysaa contact person kale la xiriir lahaa waxay helaysaa alaabta iibiyaan intaas waa helaysaa marka saadarteed maxaa ii dheeraa dhihi kartaa marka waxaa laga yaabaa inaan anagoo wax badan ka hadlayno video training ku jiraan kan ina wixii oo dhan baan ku sharaxayo membership-ka ay iibsato hadduu 6 bilood yahay hadduu sanad yahay hadduu ka badan yahayba marka iska diiwaan geliso warshadaha.com kow waxaa helaysaa 800 oo kun oo warshadood information-kooda oo ku kala yaalo 17 wadan waa midda koowaad midda labaad waxaa helaysaa 6 video training oo lagu barayo step by step kow waxaa lagu barayaa import iyo export sida u shaqeeyo import iyo export waxaa weeye sida alaab loo soo geliyo iyo sida alaabta loo dhoofiyo systemkaas u shaqeeya lagu barayaa waxaa kaloo lagu barayaa shirkadaha waaweyn sida alibaba.com DHK China version made in China.com shirkadahan waaweyn si ayagana u shaqeeyaan oo warshadaha ku jira ayagana uga faa'iideysan leed oo alaab uga soo iibsan leed alaabta u soo iibin leed ayaa lagu barayaa waxaa lagu barayaa taxation-ka si u shaqeyso canshuuraha taxation-ka waddankee joogta Kenya jooga Soomaaliya jooga Mareykan jooga alaab noocee soo gelin kara alaab noocee lii ogol yahay alaab noocee mataqaanaa canshuurteeda badan tahay alaabtii canshuurteeda yar tahay waxaas oo dhan 6 video ee training ee ku jiro ayaa ku baranaysaa waxaa kaloo ku baranaysaa iyagana logistic company-yada shirkadaha mataqaanaa alaabaha qaadaan kuwa hadii noqoto diyaaradaha kuwa maraakiibta meelaha laga helo qaabka loo xiriiro kulli iyagana ku baranaysaa waxaa kaloo baranaysaa iyadana muhiim ah oo aad iyadana muhiim u ah waxa la yiraahdo competition-ka tusaale kale shirkadaha waaweyn oo competition ku jiro ayaga dhaxdooda dagaalamayo xilliyada ay sale ka sameeyaan iyo waxaas isa uga faa'iideysan ayagana waa baranaysaa waxaa kaloo ku dheer membership markaa gasho inaad hesho 3 e-books oo ku saabsan iyagana warshadaha si u shaqeeyaan import iyo export-ka mataqaanaa taxation-ka ku saabsan iyo deep down manufacturing-ka soo shaqeeya warshadaha si u shaqeeyaan ayaa helaysaa marka intaas oo dhan lacag kala googoli ma ka bixinaysaa maya kama bixinaysid halka price ee membership-ka ah ee ay iibsatay ayaa kulligood ku cover garanaya maxaa ku sii dhar marka xilliga promotion-ka u socda ka faa'iideysato waxaa ku soo beeri kartaa si bilaash ah private Facebook group-keena tan hadda qof walba uma sameynayno waxaan u sameynaynaa dad go'an kaliya xilliga promotion-ka u socda kaliya weeyaan xilliga promotion-ka u socdo hadda 6 bilood iibsato maxaa ka baxday $20 ayaa 6 bilood ka bixiso $30 waxay ka bixisaa hal sano ka badanna website-ka ka fiirinaysa lacagta caadiga ah ee 6 bilood ah waa $180 laakiin hadda maanta iibsato iyo inta promotion u socdo $20 bixinaysaa $160 laga dhaafay $20 waxa ku helaysaa 6 video training 3 e-book 800 kun warshadood iyo gudaha marka u sii gasho private Facebook group lagu daro si bilaash ah waa inta promotion ku socdo promotion markuu dhamaado $180 ku soo galaysaa Facebook lacag gooni ka bixinaysaa marka fursad qaali ah ma haysta inta badanna waxaan sameeynaa mar haddii aan alaab cusub aan launch gareyno product cusub aan launch gareyno waxaan sameeynaa huge sale aad u weyn oo qofka uu la yaabay uu leeyahay maxay ka faa'iidayaan maya wax walba marka cusub tahay dadkii waa inaad mataqaanaa oo fududeysa ay soo galaan bartaa hadhow markii dadkii ay bartaan iyaga dadka isgaarsiinayaan saas aaminsanahay soo $20 lacag badan ma aha 6 bilood ah helaysa access-keeda
now fursadda Facebook haddii aad ku soo gasho $20 Facebook waa lifetime lagama saarayo waxa laga yaabaa membershipka inuu dhaco laakiin Facebook aad isaga sii jiraysaa Facebook maxaa keenaysaa groupka Facebook groupka already waxaan ku soo dareynaa oo maalmo ku wadnaa warshadaha iyo logistic company-yada inaan ku soo darno isugu keeno groupkaas kuwa mainka ah brokers inaan keeno kuwa dadka caawina keeno consultation sameeyo marka qofku wuxuu dhihi karaa hey waxa raba warshad China ku taalo inaan wax ka iibsado aad nooc samayso yaan kala hadla waxa su'aal u qaba marka free consultation meeshu ka helaya marka saadarteed fursadan qaaliga ah ka faa'iideyso ayaan ku leeyahay waxaan kugu soo gabagabeynayaa haddii aad rabto inaad mataqaanaa warshadaha.com xogaa gudaheeda u sii gasho qaybta category-ga kale marka aragto category-yada ugu tagaysaa qayb Soomaaliya qayb English isugu jiraan labada qayb mid ka rabtaa mataqaanaa fiin kartaa English ka fahmayso qaybta Englishka hada Soomaaliga fahmayso qayb Soomaaliya ku dhufan kartaa language meesha ay click samayn kartaa gudaha marka u gasho waa isdiiwaan gelin waxa ku bixin kartaa Visa Mastercard American Express waxa ku bixin kartaa EVC waxa ku bixin kartaa Inbadan waxaas oo ku bixin kartaa marka waxaan ku leeyahay gacmo furan ku soo dhaw laakiin haddii ay rajo ka jirto oo entrepreneur aad tahay haddii ay rajo ka jirto inaad ganacsi aad bilowdo fursadan promotion ka faa'iideyso $20 baxso kadibna access ka hel insha Allah taala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh